maanta muuqaalkeenu waxa uu ku saabsanaan doonaa siraha ku jira moobilkaaga ee tan-eska ah. Soo dhawaada haddaba. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, soo dhawaada. Waana Khaalid Cabdiraxmaan. Muuqaalkeenu maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa siro ku jira moobilkaaga ee tan-eska. Maalin dhaweyd hore waxaan kusoo boosigaray dhanka community tabka channelka boosti ahaa inaan soo iibsaday moobil cusub oo ay tan-es markaas saafar badan ayaa iga codsatay inaan kasoo sameeyo muuqaal ah siraha ku jira oo ay kamid ahaayeen asxaabtan. Saaxiibka koobaad waxaa la yiraahdaa Axmed Sadiiq, waxa uu yiri waan wataa maxaa jira ee kusoo kordhay saaxiib. Saaxiibka labaad waxaa la Xaaji Technology, waxa uu isaguna saaxiib me too amba sidoo kale waa haystaa laakiin nooga sheeg sirooyinka ku jira. Saaxiib kale oo la yiraahdo Taya Media waxa uu yiri saaxiib anna waa haystaa wax nooga sheeg bal. Shaaca channelna waxa uu yiri maxaa ku jira anigu waa wataa bal nooga sheeg walaal. Okay, way mahadsan dhamaan. Intaynan u gelin siraha jira moobilkan balan review guud ka bixino moobilkan ama macluumaad guud. Moobilkan tan-es waxa uu soo baxay 2019 August. Display-giisa iyo shaashadiisu waxa weeyaan 6.2 inch. Front camera ama kamarada hore ee selfie-da waa 8 megapixel. Kamarada dambe ama rear camera-duna waa 13 megapixel. Moobilkan tan-es RAM-kiisu waa 2GB, storage-kiisuna waa 32GB. Battery capacity-giisa ama awoodda battery-giisuna waxa weeyaan 4000 mAh. intaas waxa weeyaan review guud. Si toos ah u bilaabana muuqaalkeena haddaba. Sirta koobaad, moobilkan tan-eska waxa uu leeyahay adeega in dhanka logo screen-ku inay sawiraantu isbedbedelayaan oo markaad baqtiiso ayaad shidaba sawir cusub soo gelayo. sidaa darteed dadka qaar baan jeclaysan oo anigu ka mid ahay. sidaa darteed sidaad uga qaadi kartaa kaliya waxaad imanaysaa settingska moobilkaaga, kadibna waxaad ka jitaysaa logo screen-ka, kadibna waxaad ku dhufataa logo screen histories, kadibna waxaad tiraahdaa off. hadda waad aragtaa logo screen-keenu sawiraantu isbedbedelayaan. sawirkaas kaliyana ayay taagnaan doonaan oo wax isbedbedel ah ma samayn doonaan, waana ka defaultiga ah. haddaad u baahan tahay waad bedeli kartaa sawirka. sirta labaad waxa weeyaan si aad moobilkan u saaran lahayd dark mode ama night mode waxa loo yaqaan. si aad u saarto dark mode waxaad imanaysaa kaliya settingska moobilkaagan, waxaad ku dhufataa halka qoran tahay display ama shaashada. halkan waxaad ka saari kartaa markaa shaashadaada, ku dhufo bartan, kadibna waxaad aragtaa moobilkaagii ina uu dark mode noqday. dark mode-kaas ama qaabka madow oo habeenkii ka ilaalin kara iftiinka faraha badan indhahaaga, sidoo kalena ku ilaalinaya batterigaaga. sidoo kale waxaad ka sii bedeli kartaa dark mode-ka waqtiyada la saarayo. waxaad ku xidhan kartaa waqti, tusaale ahaan waxaad oran kartaa cadceedu markay dhacdo hala ii saaro dark mode. dark mode-na waxaan filayaa inaad fahanteen. aynu gudubno tallaabada xigta. tallaabada xigta waxa weeyaan si aad u bedeli lahayd moobilkaagan navigation bar-iska ama calaamadahan laga wadwado. navigation bar-iska waxaa yadaa kuwan. si aad u bedesho calaamadahan kaliya waxaad imanaysaa settingska moobilkaaga, kadibna waxaad tagaysaa ku qoran tahay display, kadibna waxaad hoos baad u baxaysaa ilaa aad ka gaarayso navigation bar-is. halkan aad ka bedeli kartaa markaa navigation bar-iska moobilkaaga, waxaad ka dhigi kartaa noocan. hadda waad aragtaa calaamadan waa tii dhexaad. dad u baahan tahay inaad kusoo noqoto wixii hore kuu furnaa, kaliya waxaad kor u qaadaysaa calaamadan. sidaasaad u bedeli kartaa markaa navigation bar-iska. aynu gudubno sirta xiga. tallaabada xigta waxay si aad moobilkan screenshot uga qaadi lahayd. si aad screenshot uga qaado moobilkaaga kaliya waxaad ku qabanaysaa calaamada volume-ka hoose ama codka laga gaabiyo ee hoose iyo calaamada laga baqtiyo ama power off-ka. waad aragtaa hadda waa isqaaday sawirkii preview ahaan. sidaas ayaana moobilkaaga tan-eska moobilada la mid ah aad screenshot uga qaadi kartaa. aanu gudubno tallaabada xigta. sirta xigta waxa weeyaan si aad ku soo furan lahayd si fudud notification area-ha ama qaybta ogeysiiska. si aad si fudud ugu soo furto notification area waxaad timaadaa settingska markaad timaado kadib waxaad u baxdaa hoos ilaa aad ka helayso halka qoran tahay advanced featureska. markaad tagto waxaad ku dhufataa motion and gestures, kadibna waxaad enable tiraahdaa finger sensor gesture. finger sensor gesture waxa weeyaan inaad moobilkaaga notification area-hiisa aad sida halkaaga muuqata kusoo furi karto marka aad qabato fingerprint-ka moobilkaaga. hadda waad aragtaa inaga oon soo jiidayn finger sensor-keena inaanu soo dejin karno notification area-ha ama aanu gudubno tallaabada xigta.
sidoo kale qaab kale ku tusi doonaa si degdeg ugu soo furan karto notification area-haaga adigoo halkan taagan ama home screen-kaaga. Hadda waxaad aragtaa markaan hoos u baxno ama kor u baxno inuu inoo soo furmayo app drawer-ka ama halkan application-nada mobilka. Markaad sare u baxdo waad aragtaa hadda iyo markaad hoos u baxdo. Markaad sid uga dhigi lahayd ayaan ku tusi doonaa inaad markaad hoos kor u baxdo inuu soo furmo notifications-ku. Kaliya waxaad qabataa shaashada mobilkaaga kadibna waxaad tagtaa halkan markaad ku soo baxdo waxaad tagtaa home and screen settings-ka kadibna hoos u bax waxa ilaa aad ka arkaysaa ku qoran tahay swipe down ka soo noqo. Hadda waxaad aragtaa markaan hoos u soo jiidno home screen-keena uu inoo soo furmayo notification area-ha ee mobilkeena. Sidaasina waa si ka fudud inaad soo jiido calaamadda finger sensor-kaaga ama halka dambe gacantaada saarto. Kaliya aad oo halkan hor taagan ayaad soo jiidaysaa kadibna waxay soo furaya notification area-haaga. Yaa fudud baad ku soo furan kartaa labada qaab aad ku soo furan kartaa notification area-ha hab fudud. sidoo kale talaabada xigta waxa weeyaan ama sirta xigta sheegayno sidaad ku yareyn kartaa animation-ka ama dhaqdhaqaaqa oo ay sameynayaan soo markay soo kacayaan application sidaad mobilkaaga u reduce karayso marka animation-kiisa ama u nusqaamiso waxaad timaadaa settings-ka kadibna halkan waxaad ku qortaa reduce animation waxa ka baadha halkan reduce ama nusqaami weeyaan Soomaali ahaan dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan kadibna halkan enable waxaana si fudud ku soo kacaya oo ka fudud sidii hore application-nadaada sidoo kale aad ayay kugu saacidaysaa halkan waxayna ka saacidaysaa inaad nusqaamiso animation-ka ama dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan application-nadu aan gudubno talaabada ama sirta xigta ee ku jirta mobilka TNS-ka sirta ama talaabada xigta waxa weeyaan saad ku soo muujin lahayd percentage-ka baytarigaaga ama boqolleyga baytarigaaga saad percentage-ka dabkaaga ama baytarigaaga inta uu marayo aad soo muujiso ama heerka uu marayo waxaad timaadaa settings-kaaga sidoo kale settings-ka si fudud waxaad ka tagi kartaa halkan sare notification bar-iska kadibna waxaad u dhufan kartaa calaamadda settings-ka ee halkan taala sidoo waa isla mid halkii maad imanaysaa calaamaddan search-ga ku dhufo kadibna halkan waxaad ku qortaa show percentage waxaad enable tiraahdaa show battery percentage hadda waxaad aragtaa inuu inoo soo muuqday boqolleyga uu dabkeenu marayo waxaad aragtaa hadda inaan soo muujinay percentage-keena talaabada xigta aan gudubno talaabada xigta ama sirta xigta waxa weeyaan sidoo bedeli lahayd saacadda shaashada hore ama lock screen-ka taal ee mobilkaaga ee TNS-ka saacadaas halka hore taal waxaad timaadaa settings-kaaga mobilka ama halkan sare ka soo furo lock screen markaad tagto waxaad u markaad ku dhufato lock screen waxaad timaadaa ku qoran tahay clock style ama clock style imow markaad clock style timaado halkan waxaad ka bedeli kartaa saacadaada marka waxaad hadda inay ku jiraan halkan ku jiraan saacado fara badan waxaad ka dhigan doontaa midka aad doonayso ama midka aad xiisaynayso adigu marka ama qaabka saacadeeda aad jeceshahay salahaan oo kala anu waxaan ka dhigan doonaa kan sidoo kale waxaad ka bedeli kartaa midabka saacadu ay yeelanayso adigoo ka dhigan doona midabyadan haddii aad ku qanacsan midabyadanna halkan waxaad ku sii baari kartaa midabyo kale si aad markaa u dejisay saacadana kaliya waxaad ku fanaysaa saacada waxaad oranaysaa dhan kadibna waxaad aragtaa hadda in uu saacadaas inoo saarantay markaas aad ku bedelin kartaa saacada halka horena sidoo kale sirta ku xigta waxa weeyaan halkan notification area sidoo habayn lahayd ama aad waxyaabaha aad doonaysoga saari lahayd waxyaabaha aan doonaynuga saari lahayd si aad u habayso bartan aad waxaad aragtaa halkan waxyaabo fara badan baynu yaala waxaanu yaala wifi-gi codadkii bluetooth-ka waxyaabahaas marka waxyaabo aanad u baahnayn ayaa jira halkan ku jira tusaale ahaan sidoo habayn lahayd waxaad ku dhufanaysaa saddexdan calaamadood kadibna waxaad taada bottom order-ka ku dhufo kadibna waxa aan doonayn kaliya waxaad qabataa waxa aad rabin salahaan oo kala hadda selfie in mar rabno halkaas sare geey markaa jiid kor u qaad oo waxaad geeysaa halkaas sare shayga aan doonayn waxaad qabanaysaa kaliya xaggaas sare ayaad geynaysaa waad wadaysaa waxyaabaha aan doonayn markaas aad ka qaadi kartaa sare inta u baahantayna waad soo reebaa saasan ku habaynay sidoo kale waxyaabo kale ka saaran kartaa halkan sidoo kale si degdeg ah halkan waxaad ka bedeli kartaa night mode inaad ka saaran kartaa hab fudud sidoo kale notification bar-ka aad ka bedeli kartaa halkaasina waa notification bar-iska ama halka ogeysiiska ama sidoo kale qaybta la socoshada mobilka markaas aad u habayn kartaa notification area-haaga aan gudubno talaabada xigta aanu nimaadno sirta ama talaabada xigta waxa weeyaan talaabada xigta sidaad ku yareyn kartaa culayska uga yareyn kartaa mobilkaagan ama
aad refresh u siin kartaa ama waxa weeyaan dib u cusboonaysiin soo waxa ta PC inuu leeyahay refresh sida marka mobilkaagan u refresh gareyn kartaa marka uu cuslaado ama marka aad isticmaalayso khad wanaga mobilkan inuu aad iyo aad u culus yahay intii aan isticmaalayna waxaan ka dareemay culays badan balse talaabadan aan ku sheegi doono ayaa ku caawin doonta si aad markaa u refresh gareyso mobilkaaga kaliya waxa laga rabaa inaad soo dhigato widget halkan hore ama wax yar ama widget oo garanaysa ma freeya dad aqoon hadda baranaysa dhimale waxaad qabataa shaashada mobilkaaga cadaadi markaad cadaadiso kadib halkan hoose waxaad ka aragtaa meel ku qoran tahay widget ku dhufo halkaaga ku qoran tahay widgets marka koon ayaa la yiraahdaa aqoonin marka widgetkan ayaa soo dhigan doonta halka hoose waxaad soo draagraysaa ama aad cadaadisaa widgetkan ay ku qoran tahay device care widgetkan ayaa soo jiidi doonta marka si aad marka u reduce karayso una refresh karayso mobilkaaga kaliya waxaad dhuftaa halkan ku qoran tahay optimize oo ah culays baar wareegaya hadda waxaad aragtaa hadda inuu inaga saaray datadii ku jiray mobilkeena sidoo kalena uu inoo fududeeyay telefonkeena sidoo kale halkan waxaad kala socon kartaa mobilkaaga hadba intaad isticmaashay RAM-kaaga intaad isticmaashay storage-kaaga inta ku banaan iyo sidoo kale macluumaad kale oo ku saabsan telefonkaaga memory-gaaga intaad ka isticmaashay sidoo kale intaad ka isticmaashay storage-kaaga waxaan filayaa inaad fahantay talaabadaas aan gudubno talaabada xigta ama sirta xigta talaabada xigta waxa weeyaan sidoo habeyn kartaa halkan app drawer-ka ama halkan application sidoo yareeysan kartaa ama aad u waaweyn kartaa haddii aad u baahan tahay si aad u yareeyso app drawer-kaaga ama aad application-ada inta ugu koobi karto waxaad timaadaa halkan app drawer-ka kadibna waxaad dhufataa saddex calaamadood ee halka sare kadibna waxaad ka sii tagtaa halka qoran tahay home settings markaad home settings tagto waxaad ku sii dhifataa app screen grid waxaad ku dhufataa halkan waxaad ka habeyn kartaa shaashada telefonkaaga hadba nooca ay u ekaanayso hadda waxa way noo saaran tahay sidan ama 4x5 waxaad ka dhigi kartaa 4x6 oo ah habkan waxaad ka dhigi kartaa 5x5 shan vertical iyo shan horizontal 5x5 ka dhigi kartaa waxaad ka dhigi kartaa sidoo kale 5x6 hadba saad u baahan tahay aad ku soo waxaan ka dhigi doonaa hadda 5x5 sidoo kale halkan hore waxaan ka dhigi doonaa 5x5 iyadana halkan hore wajahada hore telefonkan waxaan ka dhigi doonaa 5x5 si uu yaraado application-ku si ay u yaraadaan shaashadeedu una qurux badnaato waxaad ka dhigi kartaa 4x6 sidoo kale 4x4 buu ahaa laakiin waxaan ka dhigi doonaa 5x4 waxaan filayaa faantin talaabooyinkaas maanta halkaas aan soo gabagabeyn doonaa muuqaalkeenan maanta kulli tibkaasina habayskaasina oo iska dheeraad bay ahaayeen oo wax usii baahan wax weyn ma ahayn halkaas aan soo gabagabeyn doonaa muuqaalkeena maanta haddii aad ku cusub tahay channelka hilaamin subscribe dhahdo waa anigoo ah Khalid Cabdiraxmaan iyo halkan oo ah Somali Tech Tricks oo idin leh nabadgelyo as always stay creative